waayahay bismillaah walaal aad baa u mahadsantahay waa su'aal aad u wanaagsan dowladda Soomaaliyeed way jirtaa inuu khilaaf noo dhaxeeyay khilaafkaasna wuxuu soo bilowday xilligii doorashadii Jubbaland ay ahayd inay qabsoonto xaqiiqiyan oo ku kala aragti duwaneen dowladda dhexe iyo beesha caalamka oo damcay sidii aan wax u wadnay inay joojiyaan labadaba aan iska dhiga tirnay madaxweynaha Jubbaland iyo tiimkayagii xilligaas iyada siyaasadda Jubbaland hayayna aan go'aansanay sidaan anaga wax u rabno oo kaliya anaga sharciyad eegaynin inay wax u dhacaan markii khilaafkayga halkaas ka bilowday dabcan deewatii intaan washida iyo dhibaato ah kadib la sii maray ilaa ay dagaalo gacan ka hadal ah ay gaarto aniga nafteedana muddo dhan anoo garoonka Alcado joogay la qabtay muddo ilaa 5 bilood ah gacanta dawladda ku jiray in muddo dheer ah ayaa adiga iyo madaxweynaha Jubbaland saaxiib ahaydeen wasiirka amniga ahayd horay u arkay hadda ku muuqday oo inaad halka ka timaadeen waa mahadsantahay waa su'aal aad u wanaagsan Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Jubbaland waa saaxiib aan ahayn saaxiibnimadana waxa keentay inaan isku xisbi ahayn oo urur al-ittixaad ah aan muddo dheer ku soo saaxiibnay isku aqoon ahayn isku aragti ahayn wax badan aan saaxiib oo ummadda aanan bulshada Soomaaliyeed is wadaagin aan wada wadaagnay kadibna aan go'aansanay inaan dhisano dawlad goboleed Jubbaland yiraahdo dawlad goboleedkii waan dhisnay iyadoo xaqiiqiyan dawladda xilligaas jirtay oo Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha ka ahaa saacidna uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa aan ku kala aragti duwanahay oo aad ay dawladda dhexe fikrigaas iyo ra'yigaas uga soo jeeday dhismihii dawlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaan go'aansanay inaan dhisano dawlad goboleed Jubbaland yiraahdo oo ummadan saddexdan gobol degan lagu mideeyo loona sameeyo maamul ay u wada dhan yihiin muddadaas dheer oo 7 sano dhan waxaan maalin suurto gelin in maamul loo wada dhan yahay aan ku shaqeyn taas oo islaha shakhsiyan waqtiga ka dambeeyo waxba iska bedeli doono loo baahna in maamul urdun ah khilaaf iyo dhibaato la geliyo laakiin intaas aan kala hadlahay saaxiibkay waxaan xasuustaa erayada adag oo aan saaxiibkay ku iri aniga asaga oo wada hadalnay xilli aan ka wada hadlaynay masiirka ummadda Jubbaland inaan u isticmaalo waxaan ka fahmay markii aan warka soo aruuriyo in fara badan kamid ah maskaxdayda aan la tashaday inaadan mabda u dirir ahayn dawlad raadis ahayn laakiin magac la dirir ah eraygaas oo isticmaalay hadda ka hor aan uga jeeday in de shakhsiyan wax asaga ku kooban oo dawladnimadu ay tahay Jubbaland mid asaga jeebkiisa ku jirto cidna uusan la wadaagin oo qofkana xurmadu uu hayaan ay noqoto qofkii asaga wuxuu rabo bas arabo taasna waxaan kala hadlayaa saaxiibkay inaysan dawladnimadana ahayn Soomaalinimadana ahayn wixii la isku dirsadayna aan lagu wada matali karin Jubbaland aniga aan rabo waxa weeyaan Jubbaland ummad badan Soomaaliyeed baa isla degan dabcan intaan hadda xasuusto oo ka duwan gashay ilaa 30 qabiil oo Soomaali ka kooban waayo Soomaali muddo badan bay dhibaato ku jirtay qolada u badan iyo qolada u yar qolo aan diriirin ma leh qolo laga saaray dalku le reehbil la diriirin baa dalka laga saarayna waa la waayay waxa marka aad u daneynaynay oo anigu aan rabay oo saaxiibkeena uu suurtagelin waayay Jubbaland la wada leeyahay laga wada talinayo shuruucdeeda ay socoto hadda tusaale markaan ku siiyo barnaamijkaas anigana aan dagaalada iyo qaribka farada badan aan ku galnay shakhsiyan 5 bilood xarig gal igu hayay aan dawladda dhexe ku kala aragti duwaneen iyo beesha caalamka intaba waxa ahayd baan filayaa sanadkii hore bishii 8aad 22keedii ilaa up to now Axmed mas'uuliyad aan ahayn oo Jubbaland ka jirta male golo wasiir male oo xilliga kadib la dhisay waxa ogtahay madaxweynuhu markii la doorto tusaale ahaan waa in maalmo yar oo kooban oo bilo ah ama maalmo ama bilo wuxuu haystaa waqti uu golo wasiir ku soo dhiso waxaan maraynaa muddo ku dhow 2 sano oo kaligiis uu dalka ka taliyo deegaanka Jubbaland uu ka taliyo kabitaanka uu roo madaxweynaha Jubbaland waa sidaas ayda waxa weeyaan shacabka Jubbaland ku nool oo saddexdan gobol ku nool in uu kaligiis ka taliyo oo qof kale la taliyo uusan jirin taasaan diiday waxaan rabaa marka Jubbaland la wada leeyahay oo madaxweyne leh laakiin jara leh degmo tuulo golo wasiiro ila madaxweyne qof kasta xaq asagu uu leeyahay qabiil ku dulman uusan jirin warqadda madaxweynaha Jubbaland soo saaray xilka qaadista ku saabsan taariikhda ku qoran waa 20 bisha heshiiskaadii dawladda federaalkana 23 bisha soo shaacay qaadistaagada horeysay oo markaas aad diga rogay aad u mahadsantahay ma walaal taas waxa ku jira warqadan habeen hore la soo saaray oo shalay aan ibad buulaxawo oo go'aanadiidu ay cadaayeen mowqifkii uu cadaa ciidankii ila joogay reer Jubbaland oo ciidan aad u qiimo badan ahaa
ama jubbada hoose ha ka yimaado ama gedaha ka yimaadee oo xaqiiqiyan aan amaal fara badan u hayo waxaan rabaa inaan idin sheego jubbaland waxay leedahay ciidan aad u qiimo badan laakiin waxaa ka qariban jubbaland mas-uuliyadda ciidankaas qiimaha badnaa wiilasha ila jooga Soomaaliyeed ayaa waxaan u kala waday qof kasta meeshii uu ku qanacsan yahay inaan geeyo ciidankii markay yimid jubbada hoose iyo saraakiishii iyo ciidankii gada xilli aan fayliyey oon u sheego oon la hadlay inaan dugsiga meeshaan ka shidan aan xirayo oo nin kastoo meeshuu ka yimid aan si nabad ah rabo inaan ku geeyo kadibna warqaddaa soo baxdo go'aankaas aan qaatay cid kasta igala hadasho aan ka diiday cid kasta oo fikrigaas ani damacday inay iga leexiso igala hadashay aan ka diiday warqaddaa soo baxday laakiin warqadda sharciyadna uma arkeynin sababtoo ah systemka asaga hadda madaxweyne Axmed uu ku yahay sharci ahaynba doorashadiisina sharci ma ahayn system aan xoognay bay ahayd qodobka labaadna de keligiis baa muddo 2 sano ah ba keligiis baa dhisan oo golo wasiiro oo Axmed markii la doortay kadib shakhsiyan oo barnaamijkii asaga iyo aniga baa isla wadnay oo madaxweynaha uu ku noqday oo aan sameynay golo wasiiro oo la magacaabay oo aniga aan ku jiray ma jirinba magacaabisi waxay ahayd 7 sano ka hor 7 sano ka hor marka magacaabis ah wasiir kuma ahayn maanta laakiin mas'uuliyadda waxaan u hayay ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka shalay adarkiisay asagaana u naxo u tanaasulay oo aan qaatay haddii wax la wada leeyahay jirin in aan qaadano shacabkayga rabitaankiisa oo colaado iyo abaaro iyo cudur intaba ay saameeyeen in marka qaybta aan dhibkaas ka nahay aan ka saarno aad iyo aad baan u mahadsantahay jubbaland oo aad ka mid ahayd wasiiradii laftabarka marar badan baa dowladda federaalka waxay ku eedaysay inay arrimaha dalka u xagal daacinayaan Kenya waxaa kala socotaa xiriirka jubbaland oo qarsoon aad iyo aad baa u mahadsantahay walaal Kenya dowladda aan darisnahay waayo Soomaaliya Kenya Ethiopia ilaahay baa daris ka dhigay mana kala maarmaan shacabkooda isku dhex nool waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo annaka gaar ahaan reer Jubbaland Kenya Ethiopia daris baan la nahay mid kastana waxa ay noo galeen aad baan u naqaanaa midaan ku amal daraynana ma jirto khilaafka u dhaxeeyo dalka Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan hadda ka wadi barnaamijka badda iyo ciidda shakhsiyan aniga waxaan kala mid ahay ummadda Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay dhul Soomaaliyeed bad iyo bari midna taaki inaan lagu xad gudbi karin Kenya waxaan ogahay dawladda aan darisnahay inaan nahay shakhsiyan waxaan ogahay dhibaato fara badan oo la soo maray xilladii dawlad la'aanta uu dalka hayay iyo yoomna hada inay qaxooti badan oo Soomaaliyeed ku dhex nool yihiin shakhsiyan ummad badan oo Soomaaliyeed waxbarashadooda iyo ganacsigooda dalka Kenya ay ku barbaareen marka Kenya iyo Soomaaliya ciid haddaan isku haysano ciidayada intaasoo kale kama tageyno taaki kama tageyno badna kama tageyno laakiin waxaan ogahay dawlad aan darisnahay hadduu maanta khilaaf jiro bari la xallin karo inuu yahay laakiin madaxweyne kastoo yimaado iyo mid hadda jooga midna iyo mid imaan doona bari ma bixi karo taaka dhul Soomaaliyeed ah dawlad goboleed dhisan oo sistem ahaan iyo barnaamij ahaan Kenya dawlad saaxiib baan nahay waayo xiriir gaar ah anaka reer Jubbaland naga dhaxeeyay shakhsiyan ani xiriir baan la lahaa bilaadu markuu xiriir leeyahay wax badan buu isku caawin karaayo dabcan isku qaban karaa laakiin ciidankayga anaku ciidan noo ahaa anaka aan xaquuqdiisa siisanayno وناسو كبكبيريا واحد جتي ورقدي حالي سو سارتay hay'adda xuquuqul insaanka ama xuquuqaadanaha ay amnesty ay leedahay cabdirashiid hal soo qabto hal loo soo gacan geliyo hadii dawladdu hayso oo ay ku eedeynayso inaad haysatay dibadda ku dhintay marka warqadan xaq aad baa u mahadsantahay walaal barnaamijkaas waxaan kaga jawaabayaa barnaamij aanan sali raad lahayn macna fara badan aan iguma fadhiyo arrintaas ama shakhsi dambiilaha mihi shacabka reegada inaan dambiilahayn marqaati indhaha u aha shalay qof dambiilaha cidna ma jeclaato وسؤال شو بدنا نسأل كويتينيا عبد الرشيد وكيمي حاجة شو بلان لو بدنا يهاي بدونيا حاجة كده ما يدونا ما كده بدنا يا هذا يا سيد ورك شيء يا ما كده يسوي بدون تاع شيء حاجة هذه وما سنت ولا ذلك الصومالي سفر عافيماد سفر شقاء سفر عبادة وأوجب بحكرة لكن ذلك الصومالي أنا ولا يهاي لا أوجب صعودنا مجرد سياسة الصومالية نوانا بدرنا مطلع قانو بيرنا مطلعنا قانو أنا سياسة بنا قانو سياسة أنا كشغل دونا هدي